shirkadda korontada Beko oo ka fakaraysa badqabka bulshada Soomaaliyeed ayaa diyaarisay barnaamij loogu magac daray barnaamijka badqabka bulshada waxaana barnaamijkan uga bogan doontaa habka qaldan ee guryaha korontada loo geliyo kuwaas oo ay ka dhalan karto khatar naf iyo maal intaba wadata injineer Abuukar Taako Xasan oo kamid ah injineerada shirkadda korontada Beko ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay khatarta ka imaan karta haddii aan guryaha koronto gelin sax loo sameeynin injineer Abuukar ayaa ka hadlay aqoon darrada farsamayaqaanada suuqa laga kaxaysto ee sameeya koronto gelinta guryaha qalabka ay adeegsadaan iyo tayadiisa wuxuuna tusaale ka bixiyay inta badan fiilooyinka ama wire-ska ay isticmaalaan farsamayaqaanadaasi injineerka ayaa soo bandhigay muuqaal jacbur ah oo ay sameeyeen farsamayaqaano aan aqoon durugsan u lahayn koronto dhigista guryaha injineerka ayaa fariin wacyigelin iyo talo bixin isugu jirta u diray dhammaan macaamiisha korontada gaar ahaan macaamiisha Beko shirkadda korontada Beko ayaa si isdaba joog ah waxay wacyigelinta khatarta korontada uga wadaa guud ahaan miidiyaha waxaana inta badan soo dhaweeyay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waa kan injineer Abuukar Taako Xasan oo sharaxaya qodobadaasi haddii aan fiirino tusaalahan waa guri jiingada korontana ay ku jirto haddana ay ka imaan karto khatar koronto oo sababi karta khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba sida noo muuqata fiiladan way fiiqan tahay fiiladan fiiqan haddii oo qof taabto way ku dhigaysaa waxayna sababi kartaa dhimasho amba dhaawac halis ah ee soo gaara qofkii sidoo kale haddii aan fiirino fiiladan waxay ku dhegan tahay lameeriga haddii dhaawac soo gaaro amba ay fiiqanto toos waxay u dhigaysaa lameeriga waxayna sababi kartaa gurigaas inuu gubto guud ahaanna sidaas guriga ku burburo amba qof ayay ku dhigi kartaa maadaama jingadu ay gudbinayso koronto oo gudbiye fiican ay tahay sidoo kale haddii aan fiirno daaridimiyaha gees ayuu ka jaban yahay haddii oo isku dayo qof inuu daara ama dimiya waxay si sahlan u qaban kartaa qofkii taasoo sababi karta khatar halis ah sidoo kale haddii aan fiirino fiiladan qaabkay iskugu xiran yihiin amba meesha iskugu imaanayaan amba jointiska aad ayay iskugu xaysan yihiin oo isku dhex yaacsan yihiin sidoo kalena way fiiqan tahay oo wax sharuuto ah ma lahan ugu yaraan waxay ahayd in la sharuuteeyo iyadoo sharuutaysan laga tago haddii aan sidoo kale aan fiirino laambadan waxaa ka maqan fadhigii haddii qof isku dayo inuu dib u dayaxtiro si sahlan ayay u qaban kartaa waxayna sababi kartaa khatar nafeed waxaan arkayna waa qaladaad ka dhacaya farsamayaqaan kaasoo aqoon fiican u lahayn fiilagelinta guryaha amba mas-uuliyadda sax aan iska saarin saa daraad waxaa looga baahan yahay bulshada inay ka taxadiraan qaladaadka noocan ah markastaba qodobka labaad ee sababi kara khatarta koronto waxaa waaye tayaxumada qalabka korontada tusaale ahaan fiilooyinka sayskooda aad u yaryahay sida fiilada noo muuqatay loo yaqaano duwa birduwa waa fiilo sayskeeda aad u yaryahay aadna tayadeeda u liidato awoodna uma lahan xamuul badan inay qaado waana ta ugu badan ee sababta gubashada guryaha sidaa daraaddeed shirkadda waxay ku talinaysaa fiilada noocan ah in macaamiisha guryaha ayna gashan ayagoo bakhiilaya qarash hal waqti ka baxaya sababtoo waxaa ka daran khatarta ay keeni karto sidoo kale waxaa ka mid ah qalabka tayadiisu ay liidato bareeska noo muuqda bareeskan tay ahaan waa mid liita khatartiisuna ay badan tahay tusaale ahaan caruurta iyo dadka waaweyn intaba ee aqoonta u lahayn khatarta korontada waxay si fudud u geli karaan shay gudbiya sida masaabiirta taasna waxay sababi kartaa khasaare nafeed iyo mid hantiyeed intaba waxaa ka mid ah qalabka koronto ee tayadiisu ay liidato qaybasada noo muuqata qaybasadan ma ahan mid awood u leh inay xamuul badan ay qaado amba tayadeeduna waa liidataa tusaale ahaan katalka ambeerkiisu uu badan yahay awood uma lahan inay qaado haddii la damco in loo isticmaalane waxaa laga yaabaa inay dhalaasho sidaasna ay gubashada ay ku bilaaban karto waxaan ku soo gabangabeynayaa korontadu waa shay laga maarmaan ah lafdhabar noo ah bulshada halisteedana leh sidaa daraaddeed macaamiil shirkadda waxay ku talinaysaa inaad ka taxadirto fiilagelinta gurigaaga aad dhisanayso adoo maraya hanaankii loogu talagalay fiilagelinta guryaha
sidoo kalena u dirsanaya farsamayaqaan aqoon buuxda u leh fiilgelinta guryaha isticmaalaya qalab koronto oo tayo leh oo aadna ka baqiilin materialka galaya gurigaaga ugu dambeyn waxaan sidoo kale xasuusinaynaa macaamiisha sharafta leh inaad daawataan muuqaalka ku xiga oo si sax ah oo standard ah looga hadlayo fiilgelinta guryaha gaar ahaan kuwa jiingada ah wabillahi tawfiiq